wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mire Maxamed ayaa ka hadlay dil shalay tolo ka dhacay degmada Celafeen kaasi oo la dilay mid kamid ah beelihii iyagu hore ugu diriray deegaanadaasi. wasiir Boss Mire Maxamed ayaa fariin u diray beelahaasi walaalaha ah ee wada degan deegaanadaasi. meesha Somaliland ee ka wada naxdo markay wax ka dhacaan Celafeen ka dhacday shalayto أكان بلوغ دري وبالها ينتدوسو أو جيدين وهي أود كوبحي وهي خرج كوبحي وهي قربت كوبحي وهي الشيخ يشرف سكوتي أو وحدين تبني لنا ما يشتهر وسوون أكثر قروح بدن أو صورنا ماتي أو حتى مجيه كلاقاتين هذا وهو واجد بصور نقطان وأرن آذي لوغا نحو Somaliland waxay ku noqotay booqxun kuwan waxa sameynaya ee Ramadaanta oo ayaamihii barkeysnaa Ilaahay doortay dhiiga qofka islaamka daadinaya waa mushkilad iyaduna inteeda la eg Ilaahay waxaan leenahay aynaga dambiyo halkeeda haynugu joojiyo waxaan leeyahay markaa halka baaqu ma ka tiriya baaqa waxaan u diriyaa beesha uu ka soo jeedo ninkan marxuumka dhintay ee dhibanaha waxaan leeyahay sidaynu waagi aynu hore ugu ballanay nabadda waa weydeen iyo colaadda waa joogteen intii dadkaas u dhib soo maray waa weydeen degmashada halka ka dhacday ummadda Somaliland oo dhaminta badan waa idin la qabtaa idinkuna waxay yeeshaan sidaynu ku soo ballanay waa bir Ramadaan waa biraha barakeysan bisha ugu barakada badnayd dadku waa soomayahay inay idinka xageena war dambe wax ka soo bixinay asamirtaan joogtaan sugtaan ummadda Somaliland iyo dowladda jamhuuriyadda Somaliland ba beesha kale waxaan leeyahay inta qofka wax geystay uu ka dhashay waxaan leeyahay hal isku caqliga dib loogu soo noqdo naxdinta deeg ka dhacaysa shalayto markii aan wada naxdin mid baa igu war kuwan meenu habaarna waxaan ku leeyahay habaar waxa ka daranba inta ka naxaysa Ramadaan taaba iska habaaree waxa habaar inuu tagi ma duucun bay inuu tagaysa iyagana waxaan leeyahay waa Ramadaan waqtiga dhigu daatay beeshana de wax laga baqaa in badan oo wanaagsan inay ku jirto si lagu ballamay hal doono qofka wax sameeyay hal soo qabto isaguna si arkaas waa ka inoo dhamaado labada baqban soo diriya waxaan idin leeyahay 10 jeer hore idin niri halkaas uu wada joogaysa yawmal qiyaamaha hadii qof soo haro ama hadii laba qof soo haro labada halkii buu wada joogtay boqolaal hore soo dhintay waxa la wax ku dhinteen lama garanayo halka ku wada nooshiin nabad guriga isku xigay ku wada nooshiin sabab dhig loo daadiyo oo dhig islaam loo daadiyo oo bir Ramadaan loo daadiyo malaymayna meesha taal Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo dhaqsaha badan oo ugu wanaagsan oo inooga dhameeyo insha Allah. Luqmaan Maxamed Faarax Bulsho TV Hargeysa.